ololaha kaalme kuwani ah oo la khayriya oo inta badan istusa dadka ladan iyo inta danyarta ah ayaa maanta guri baloodh ah oo laba iridoodlaha gudaha magaalada Burco uga hirgeliyay Cabdille Aadan Dhagasool oo ah ninkii silsiladu lugta jartay. hirgelinta iyo galeelida iyo dhismaha gurigani ayaa waxaa ku baxay lacag dhan $18,570 waxaana isla goobtaasi furayaashii gurigaasi lagu wareejiyay Cabdille Aadan Dhagasool. waxaana ugu horeynba madashaasi ka hadlay gudoomiyaha ololaha kaalme kuwan samafale suxufi Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon iyo injineer Siciid Maxamed Ducaale oo ahaa qandaraasihii bineeyay dhismaha bilan. maanta ay taariikhdu tahay 24 bisha koobaad ee 2017 haddaanu nahay ololaha kaalme kuwan waxaanu ku wareejinaynaa Cabdille Aadan Dhagasool guri baloodha oo ku yaala xaafadda Hodan Qaylo. waa ilaahay fadligii Cabdille oo aanu hore xaaladiisa soo bandhignay walaalo muxsiniina oo Soomaaliya ayaa ka damqatay lacagihiisii waxaanu u qorshaynay inaynu hooy ugu sameeyno bilaahoy ayuu ahaa isaga iyo ehelkiisa iyo qoyskiisa sidoo kalena lagu daryeelo xaaladiisa caafimaad. imika Cabdille uu caafimaaday mustaqbalkana waxa aanu u sameyn doonaa Cabdille iyo qoyskan dukaan ay masruuf kala soo baxaan dhaqaalihiisa kalena waxaanu ku wareejinaynaa eheladiisa annagoo muxuu ahay la maamulayna. halkan muxuu ahay waxaan kaloo ka sheegayaa Cabdille qorshayaasha uu qorshaysan waxa weeye Cabdille kadib markii uu caafimaaday imika Cabdille wuxuu hadal hayaa inuu guursado. marka waxa weeye dhawaan gurigan ayaynu Cabdille ku dhisi doonaa insha Allah biidhnilaahi kareem. waxaan ku wareejinayaa furayaashii gurigan oo aan dhisay oo kaga qandaraastay qolada kaalme kuwan aan kaga qaanday qandaraas ah $14,000 qandaraaskana guriga waan ku dhameeyay. guriga gudoomiyaha kaalme ku wareejinaya furaha oo qandaraas kaga qaatay guriga insha Allah Cabdimaalik Muuse Coldoon guriga waan ku guuleystay insha Allah ta'ala. marka hore Ilaahay baa mahadle mar labaadka waxaan u mahad celinayaa dadkii soo caawiyay Cabdille Aadan Maxamed meel kasta baa joogan. mar saddexaadka ururkan kaalme kuwan ee Cabdimaalik madaxeeyay gurigii noo dhamaaday baloorka waa lagu wareejiyay Cabdille Aadan Maxamed si wanaagsan ay ugu dhamaaday aad iyo aad ayaa looga shaqeeyay. dhanka kale waxaa isna eraya mahadnaq iyo duco isugu jira ka yidhi madashaasi Cabdille Aadan Dhagasool isagoona ka warbixiyay xaaladiisa caafimaad. marka waxa weeye baalka maxaa maanta xaaladaad ka waran aad iyo aad baan la wacnay wallahi waxaad ka warata Cabdille waxa la yiri wad guursanaysa maxaa ka jira waa dhab haddii Ilaahay nagu waafaqiyo waa dhab guursanaya. gabagabadiina waxaa si rasmi ololaha kaalme kuwani si wada jira ugu wareejiyeen furayaashii gurigaasi Cabdille Aadan Dhagasool iyo walaalkii Xuseen Aadan Dhagasool.